wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay isku xirka hay'adaha dawladda ee ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda carruurta. mar kale waxa inoo haya Cabdullaahi Axmed Kulmiye. geedi socodka dhamaystirka sharciga xuquuqda carruurta Soomaaliyeed oo mid marxalado kala duwan soo maray ayaa mid loogu galeeyahay sidii carruurta Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xuquuqdooda isla markaana laga hortago askaraynta carruurta iyo ka shaqaynta helidda waxbarasho tayo wanaagsan leh dawladda iyo xaqsiinta carruurta helidda daryeel nololeed iyo ilaalinta sharciga xuquuqda carruurta Soomaaliyeed waxaa kulankaas soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. عادل محمد علي أقاسمها وعيقلنتي يحرك وزارة هوينكا أيا كهذا الشيء وجدد كلن كان إن أي هلام وحبرشة حق يقولين أفريقيا إن أي هلام عاصمات إن أي شيء إن أسكرين إن لقيت العاليو المركز شيء تقوم وزارة سيدو وشيء أقاسمها بود تقوم وزارة أيا وحنقولنا هاي شيء إن لين تقوم كات وزارة وحبات تقصيه شيء حقوق الجود وحوكيل كوزارة هوينكا يورملك حقوق أنا ayaga oo mandateeda uu yahay haweenka iyo carruurta. Abukaata Tahliil Xaaji Yuusuf la taliyaha diyaarinta xeerka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed ayaa sharaxay halka uu marayo dhamaystirka xeerka carruurta Soomaaliyeed. sharcigan wuxuu qaadan doonaa sharciyada jiray waqtigooda qaybaha aan waafaqsanayn inuu tirtiro oo sharcigan lagu sheegi doono ولله فضل كسيدا سيدا شرعي بلوغ كل جرا وحلقة بابي سيدا سنادام وسهل سؤال كريم. داق سليمان يوسف أقاسمها جود وزارة هوينكا يومرنت حقوق الأدناء الحكومة الفدرالية الصومالية وسر رسمي وضع فري كلن كيا كهذا ليه أهمية شرع حقوق العروض الصومالية. هذا قرار في قصة محي دبلوميستا لمستمعي استراتيجية قرن قافك وحقبت كورتك عسكرية عروضة سيدينتا دريالتك iyo dhaqan celinta carruurta la askariyay shirkaas oo dhacay 27 November 2018 waxaan ku dardaarmayaa in uu noqdo shirkadi shir furan inuu noqdo shir mataqaanaa aanu fikradaas isweydaarsanayno ka soo qaybgalayaasha kulankan ayaa si isku mid ah u sheegay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan in laga warmaan ay tahay in laga shaqeeyo horumarinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.